kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee xiliyadan oo kale aad noga barateen qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli uu kulan la soo qaatay hogaamiyaha dalka Masar Cabdilfataax al-Siisi iyadoo shaki badan uu abuuray qaar ka mid ah arrimaha ay ku wada heshiiyeen isaga iyo dhigiisa waddanka Masar. Generaal Abubakar Xuud oo si cad u sheegay inuusan mucaarad ku ahayn dowladda Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina ay jirto hal arrin darteed oo uu go'aansaday inuusan mucaaradin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. faahfaahinna ka soo baxayo israsaasayn degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ku dhaxmartay ciidamada dowladda xilli ciidanka ay gaadiidka ku wadeen askari lagu fuliyay qisaasta dil uu askari kale u geystay. iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hogaamiyaha kooxda Al-Shabaab ee dagaalka ka wado dowlad deegaanka Soomaalida oo war ka soo saaray duulaanka dalka Itoobiya ay ka wadaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin. qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. aynu ku bilownaa daawadayaal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu maqnaa dalka Masar ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxtooyada oo qoraal ka soo saartay dib u soo laabashada madaxweynaha ayaa shaacisay qodobadii ay ka wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdilfataax al-Siisi. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa Masar waxaa kulan uu la qaatay hogaamiyaha Masar Cabdilfataax al-Siisi isagoo isla soo hadal qaadeen xoojinta xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya labada dal, iskaashiga diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo wax wada qabsi oo ay wadaagaan labada shacab ee walaalaha ayaa lagu yiri qoraalka Villa Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uusan ka soo ambabixin magaalada Qaahira waxa uu sidoo kale la kulmay xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Ahmed Abulqayd waxaana uu ka dalbaday in ururka Jaamacadda Carabta uu sii dardargeliyo howlaha gurmadka abaaraha iyo horumarinta xal u helidda caqabadaha amni iyo dhaqaale oo ay la tacaalayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intii uu ku sugnaa Qaahira waxa uu la soo kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdilqaasim Salaad Xasan, mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan Masar. Generaal Abubakar Xuud oo ka soo jeedo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in uusan mucaarad ku ahayn dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu cadeeyay mowqifkiisa kaga aadan dowladda Xasan Sheekh. Xuud ayaa sheegay in wararka tilmaamayo in mucaarad uu ku yahay Xasan Sheekh ay been yihiin isla mar ahaantaasina uu hadda kadib xitaa mucaaradi doonin dowladda Xasan Sheekh. waxa uu tilmaamay in Xasan Sheekh uu abti u yahay sidoo kalena marka laga soo tago abtinimada uu ku taageerayo Xasan Sheekh Maxamuud go'aankiisa ah in Soomaalida dhexdeeda uu heshiisiyo dunidana heshiis ay la noqoto Soomaalida. Xuud ayaa sheegay in Soomaaliya 40 sano ay wada khaldan ku socotay. Muqdisho waxa ay lahaan jirtay buu yiri qad cagaaran balse maanta xaalku waa isbedelay. xalane ayaan loo fadhiyaa oo qadkii cagaarnaa loo wareejiyay. marna madaxweynaha cusub waxaan leeyahay buu yiri Soomaali xor ah ayaa laga rabaa in aad ku darto hadafkaada. Generaal Abubakar Xaaji Warsame Xuud ayaa si weyn uga soo horjoostay maamulka Hirshabeelle balse xilligii ay sii dhacaysay dowladii Farmaajo ayaa la keenay magaalada Muqdisho. isla mar ahaantaasina waxa uu ogolaaday in nabadgeliyada xoogga la saaro. Generaal Xuud oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaana sheegay in marnaba uusan isbedelin mowqifkiisii hore ee kacdoonka gobolka Hiiraan
kaasi oo uga soo horjoodo maamulka Guudlaawe. Xuud ayaa sheegay in aan xoog lagu haysan karin gobolka Hiiraan, isla mar ahaantaasina maamul cusub ay u sameynayaan, waxaana uu xusay inuusan aqoonsanayn maamulka Hirshabeelle ee uu hogaamiyo Cali Guudlaawe. qaybihii dambe ee warkeena ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. iminkana faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa israsaasayn xoogan oo ciidamo ka tirsan kuwa amniga iyo maleeshiya hubaysan ku dhex martay xaafadda 1 Luulyo ee degmada Caabudwaaq gobolka Galgaduud. dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii maleeshiyada hubaysan ay weerareen askar waday meydka askari ka tirsan ciidanka dowladda oo loo qisaasay dilka taliye ku-xigeenkii ciidanka NISA ee Galmudug iyo walaashiis. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in israsaasaynta uu ka dhashay khasaare kala duwan ayna ku dhinteen 2 ruux oo labada dhinac ka kala tirsan, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa sidoo kale la soo warinayaa in xaalad kacsanaan ah oo ka dhalatay weerarka ay ka taagan tahay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud, isla mar ahaantaasina dadka deegaanka cabsi ay soo wajahday. toogashada askariga ka dhalatay xiisadda ayaa ka dhacday fagaara ku yaala duleedka degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud, iyada oo goobjoog ay ahaayeen ehelada marxuumiinta uu hore u dilay askarigaasi, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Dhagadheere ayaa waxaa maalin ka hor xukun dil toogasho ah ku riday maxkamadda ciidamada kadib markii ay saraakiil ka tirsan maxkamadda gaareen degmada Caabudwaaq, kuwaasi oo uu hogaaminayay gudoomiye Xasan Cali Nuur Shuute, waxaana dilkaasi lagu fuliyay isla shalayto. maxkamadda ciidamada qalabka sido ayaana hore sidani oo kale dilal ugu fulisay askar ka tirsanaa ciidanka dowladda kadib markii lagu helay dambiyo la xiriiro dilal ay geysteen. degmada Caabudwaaq oo ka mid ah magaalooyinka hoostaga Galmudug ayaa waxaa inta badan ka dhacaan dilal qorshaysan oo qaarkood ay geystaan maleeshiya hubaysan. ugu dambayntiina daawadayaal, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa isku diyaarinaya rogaal celin culus kadib dagaalo ay la galeen ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Liu Bolis, iyadoo furimaha hore ee deegaanka Ceelberde iyo Caato uu gaaray mid ka mid ah culummada dhiirigelinayo kooxda Al-Shabaab ee qaybta ka ah dagaalyahanadaasi, Sheekh Fuaad Maxamed Khalaf, oo hadal ka jeediyey boqolaal ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan deegaanadaasi goob ay isugu yimaadeen, ayaa u sheegay inay isku diyaarinayaan weeraro kale oo ka dhana ciidamada Itoobiya, isaga oo u hambaliyeeyay guul ay sheegteen kooxdaasi kadib dagaalkii ay la galeen maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowlad deegaanka ee Itoobiya Liu Bolis la yiraahdo. waxa uu sheegay in ay jebiyeen ciidanka Liu Bolis dagaaladii ay la galeen, isla mar ahaantaasina ay sii wadi doonaan dagaalkaasi. sidoo kale waxa uu kula dardaarmay dagaalyahanada in ay u adkaystaan dhib kasta oo ay la kulmaan inta ay ku jiraan dagaalka, isla mar ahaantaasina ay sii wadaan ilaa inta ay ka dhimanayaan ama ay guul ka gaarayaan. Fuaad ayaa ku dheeraaday kulamada dhiirigelinta oo dagaalyahanada ku riixayo inay sii wadaan dagaalka, isagoo soo hadal qaaday dagaaladii lagu laayay ciidamada Itoobiya ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Yeed iyo deegaanka Caato. ugu dambayntii waxa uu ku goodiyey maleeshiyada Liu Bolis ee ku sugan deegaanada xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya inay ka shalaayi doonaan xasuuqa iyo xadgudubyada uu sheegay inay ku hayaan dadka halkaasi ku dhaqan. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ka daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.